mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Agoosto 2020 inaan kala soo qayb galo kulankan aan caadiga ahayn ee anigu aan soo dalbaday kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo wada hadallada socda ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa ku mahadsantihiin inaad iga aqbasheen codsigayga aan idinka codsaday idinka dalbaday kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inta aan u guda gelin warbixinta guud ee shirkii Dhuusamareeb waxaan rabaa inaan guddoonka golaha shacabka ee xildhibaanada sharafta leh aan uga mahad celiyo shaqadii wanaagsaneyd ee aad meel mariseen muddadii 3 sano iyo barka ahayd iyo howlaha baaxadaha leh ee aad suurtageliseen oo ay ugu horeeyaan shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale sanadkan 2020 wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyay hawlo badan oo la qaban lahaa maadaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyay dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale sidaas oo ay tahay haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino 12 sharci oo ay muhiimadiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka sharciga batroolka sharciga statistics-ka sharciga duulista rayidka sharciga kamid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga darafyada badan sharciga furdooyinka sharciga warbaahinta iyo kuwa kale tiro intaas ka badana waad ansixiseen aniguna waa saxiixay sanadii la soo dhaafay 2019 iyo kii ka horeeyay 2018 runtii waxaa qabateen hawl aad iyo aad u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idinka horeeyay ama baarlamaanka idinka horeeyay runtii aad muujiseen hawlkarnimo iyo shaqo badan waan idinkaga mahad celinaynaa hawlahaas hortabinta u leh dhismaha hay'adaha dowladda kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha guddiyada joogtada ah iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka tobnaad mudanayaal iyo marwooyin sida aad la wada socotaan waxaa intii u dhaxaysay 18 ilaa 22 Luulyo 2020 wada hadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug wada hadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotomeen sidii looga wada xaajoon lahaa hanaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay oo horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee muddo dheer ka shaqeynayeen shirkii ka horeeyay oo London ka dhacayna communiquegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021 shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Unionka
kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod communiquegoodiina waa ku qoreen kadibna waxaa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii markay dhammaysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal waana ansixiseen macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray waa soo dhammaaday kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed part 2 oo kii hore laga dhigayo waxaan jirin inkastoo ay dooduhu kala fogaayeen dowlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhageen in doorashada hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa annaguna aan la tagnay meesha ana ku adkaysanay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyey horeyna loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabinin anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii dhuusamareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanaan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka weyn golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxa aad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan war murtiyeedkii dhuusamareeb wuxuu dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waqtigeeda ku qabsooma ama ku qabsoonta lagana wada tashado iyadoo hawshaas loo saarayo guddi farsamo oo ka soo baarandega hanaanka doorashada qaabka uu ku dhacayo dhaqangalkiisa implementationkiisa guddigaas oo ka kooban dowlad goboleedyo xubno ka mid ah iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir sida ay Soomaalidu tiraahdaba aan wada hadalno waa aan heshiino wada hadalku wuxuu sii xoojinayaa wada jirkeena dimuqraadiyadeenna iyo inaan siyaasadda dalka aan ku hagno tala wadaag iyo is-ogol macnaha qof shakhsi ah hadduu yahay madaxweyne iyo hadduu yahay xildhibaan iyo hadduu yahay dowlad goboleed in qof shakhsi ah uusan wixii jiidan oo ay tahay wax naga wada dhaxeeya oo aan leenahay oo tala wadaag ah aan isku qancinno aan isu tanaasulno sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan oo wada hadalku furan yahay oo aan la kala dudin la wada tashado la isqanciyo lana yimaado qorshayaal iyo go'aamo siyaasadeed oo awoodda dib ugu celinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aad idinku matashaan taasoo sii xoojinaysa in golahan uu noqdo marjicii arrimaha masiiriga ah ee loogu soo noqonayo mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan maanta oo bisha 15 ah waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu
ay uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajaweynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeena ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin cadeynayaa bacdama aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idin cadeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan mar labaad aan idinku hambalyeeynaya shaqooyinka aan maxaan ku yiraahdaa aad soo qabateen oo waqtiga dheeriga ahna aad galiseen sidii loo dhameystiri lahaa shuruucda muhiimka ah ee dalkan hor yaalla ugu dambeyntii waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagga leh aqbasheen oo aad ii soo dhaweyseen waa salaamantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanka anagu noo xiran yahay waxaan rabnaa madaxweynaha intuu ka baxay xildhibaanada inay fadhiyaan